ballanqaad allaan ku noolnahay hadduu ilaahay dadka ku qaban lahaa waxay kasbadeen maa taraka calaa dahriha min daaba. hal daabad adduunka laguma dhaafeen walaalayaal. dhammaan waa isnaqaanaa. war qof walboo daacada ilaahay ku soco dhallinyarta ilaahay subxaana wa tacaala u soo rujuuca. war dhallinyaroy fasahaadka joojiya. war wax badan ilaahay ka xishooda. war dhallinyaronimadu waa xilliga ugu da' wanaagsan. waa nimco ilaahay dadka soo marsiiya subxaana wa tacaala. cilmiyaa looga faa'iidaystaa, camal saalixaa looga faa'iidaystaa, mustaqbalkiina adduunkaa looga faa'iidaystaa. war xilli baa la gaari doonaa dhallinyaro aad gaari doontaan heer farta la qaniino oo aad dhihi doonta halaageeyo yaa gadaal iyo celiya tan aakhira intaan la gaarin. rabbanaa akhirnaa intaan la gaarin, rabbanaa akhrijnaa nacmal saalix intaan la gaarin ayaa adduunka lagu qoomamayn doonaa. in allaala intaan wakhtigooda ka faa'iidaysaninna dhibaatadaasay la kulmi doonaan. war maxaa faa'iidaa haddaad meelaha fadhiisato? war maxaa faa'iidaa dumarka meeshaa maraya haddaad mar walba daawato? war maxaa qiime iyo wanaagoo kaa soo gelaya? sharafta iyo qiimaad yeelanaysa maxay tahay haddaad rabbigaa caabudi weyso? war in badan u dhaxeeya meelaad ka shaqaysaan hadday shaqo jirto, meelaha waxbarashada haddaad waxbarataan, beydkii iyo gurigiina iyo beydka allah, intaa wixii ka soo haro walaalayaal waa faa'iida daro. war intaa wixii ka soo hara qiime iyo wanaag ma laha. war intaa wixii ka soo hara ilaahay ummadda wuu ku ciqaabayaa. bacdamay xaaladdu saa tahay aan rabbi u soo laabano. dhallinyaradu waxaan dhihi lahaa wax badan oo fursada ayaad dayacaysaan. war fursadaha aad leedihiin nafteed wax ugu qaban kartaan. war waalidkaad wax ugu tari kartaan. war bulshadii ummaddaad wax ugu qaban kartaan. waxaad ku dhammayseen in meel la fadhiisto. waxaad ku dhammayseen in ciyaari waxyaabo kale la galo. gobolka mid ah ayaa maanta fasahaadka heerka uu gaarsiisan yahay ummadda musalliintaan beydka alla ka imaan karin. nin kastaa midii baagad buu wataa, halkaasuu joogaa. war ilaahay subxaana wa tacaala laga xishoon maayo miyaa dhallinyaro? war ma ogidin miyaa in la sakaraadayo, sakaraadka laysku xanuunjinaayo? ma ogidin miyaa in adduunka karfal laydinkaga duubo? ma ogidin miyaa in dhul mitira laydin dhigi doono? war ma ogidin miyaa in meesha laydinkaga soo kala tegi doono? war waa lagu weydiin doonaa dhallinyaronimadaada iyo waxaad ku baabi'isay. waa lagu weydiin doonaa waxaad ku dhammaysay shabaabnimadaada. waa lagu su'aali doonaa adigoon ka jawaabin inaadan lugaha saa u kala dhaqaajinayn rabbi agtiisa subxaana wa tacaala. bacdamay xaaladdu saa tahay aad iyo aad u soo rujuuca. war dhallinyarada baadiyaysanay ilaahay u soo laabta. war dhallinyaro walboo cibaado alla ku barbaara, diin alla ku barbaara, khayr iyo wanaag ku barbaara. raxmaanka harkiisa loo hariyaa maalin uusan hoos jirin ilaa hooska ilaahay maahane. war yaa kuu maciinaya rabbi agtiisa? war yaa wax kuu taraya alla agtiisa? war yaa janno ilaahay ku gaarsiin kara alla agtiisa subxaana wa tacaala oo aan rabbi ahayn? war ilaahay marka lagu horgeeyo oo lagu weydiiyo maxaad ku soo dhammaysay dhallinyaronimadaadii, ma baagadii tooreedaad la soo bixi doontaa? ma intii moobilaad qaadataad rabbi horkeeni doontaa? war xaaladda noocaasa maxaa dhacay? wejigabax baa dhici doona rabbi hortiisa marka la tago. walow tara إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ساسو إلهي تلمامي سبحانه وتعالى حداد أركي لهي xilliga ay mujrimiinta dembiilayaasha madaxa ay foorarinayan xaggee la joogaa cinda rabbihim. kaaba qabiil hortiisa lama taagna oo mar allaala marka dhib la gaaro wax bixin jiray. hooyo agteeda lama joogo oo mar allaala marka dhib gaara dahabka bixin jirtay. adeer agtiisa lama joogo oo mar allaala markuu dhib ku soo gaaro kuu soo gurman jiray. caalamka rabbi caalamkoo dhan allaha barbaariya agtiisaan laysku dulmin. qof kastaa xaqiisa qaataad hortaagan tahay. walow بعزم فصيح فإني علمت بأنك نجوى ولبس خبيث مضيء